kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare ayaa waxaa faallo ka qoray wargeyska VG ee ka soo baxa dalka Norway. Journalka ayaa qoraalkiisa ku bilaabay in Xasan Cali Khayre uu yahay 49 sano jir yimid dalka Norway isagoo ah 22 sano jir sanadkii 1989 wuxuu noloshiisa ka bilaabay magaalada Vestresledre ee gobolka Vadres kadib waxa uu wareegay caasimadda Norway si uu wax uga barto halkaas sida uu qoray journalka VG. Khayre ayaa journalka Aftonbladet u sheegay inuu ahaa qof nasiib badan kadib markii uu Soomaaliya ka soo tagay sanadkii 1989 markaas oo ay dagaaladu taagnaayeen albaabka hore. Wuxuu sheegay in uu Norway ka helay amni, deganaansho iyo fursad waxbarasho. sanadkii 2002 ayuu bilaabay inuu ka shaqeeyo arrimaha dadka soo galootiga isaga oo shaqadiisii ugu horeysay ka bilaabay hay'adda NRC ee ka shaqeysa arrimaha qaxootiga. Kadib waxa uu noqday qofka Soomaaliya u qaabilsan hay'adda NRC waxaana uu wareegay dalka Kenya 2012-2014. journalka VG ayaa ka hadlay baaritaankii guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ee ay la xiriiriyeen Khayre inuu la xiriir la lahaa kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab waxaana ay sheegeen in mar dambe laga tirtiray tuunkaas. journalka oo soo xiganaya CBC News ayaa sheegay in sanadkii hore danjiraha u fadhiyay Norway qaramada midoobay Mr. Geir Pedersen uu helay qoraal ka yimid guddiga dabagalka ee qaramada midoobay oo xil saartay Soomaaliya iyo Eritrea waxaana looga dalbaday in guddiga loo madax banneeyo in ay wax ka ogaan karaan canshuur bixinta Khayre ee sanadkii 2013 koontadiisa iyo waliba kaararka ama hashada credit cardska uu isticmaalayay sanadkii 2013. Khayre ayaa Dag Bellet u sheegay in waxa lagu soo oogay oo dhan ay ahayd been abuur la dhoodhoobay. madaxa hay'adda NRC ee dalka Norway Herit Burrud ayaa sheegtay in Xasan Khayre la magacaabay xilli adag oo dalka abaaro ba'ani ay ka jireen laakiin khibradda uu leeyahay arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka uu siin karo inuu wax ka qabto dhibaatada taagan. waxaana uu ku tilmaamay shakhsi daa'imay samafalka kuna wanaagsan gorgortanka iyo xalinta. wargeyska ayaa sheegay in Xasan Cali Khayre yahay nin haysta laba dhalasho oo Soomaaliya iyo midda uu ikhtiyaarkiisa ku noqday ee Norway si lamida madaxweynaha oo ah muwaadin haysta laba dhalasho.